horaantii bishan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la kulmay ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata waddanka Suudaan gaar ahaan magaalada Khartoum xilli uu ka qayb galayay munaasabadda shaacinta heshiiskii nabadda ee hogaamiyaasha Suudaanta Koonfureed ardayda Soomaalida ee ku nool waddanka Suudaan waxay xilligaasi ka faa'iideysteen fursad ay muddo naawilayeen waxayna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre goob fagaaraha ugu sheegeen dhibaatada ay ku qabaan maamulka safaaradda Soomaalida ee waddanka Suudaan gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee Suudaan ayaa si dareen leh ra'iisul wasaaraha ugu jeediyay codsi uu wakiil kaga ahaa inta badan ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata waddanka Suudaan ra'iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa maadaama aad adigu haysid maanta inaad wax ka bedeshid dadka u shaqaynaya dadka inaad naga bedesho dadka safaaradda jooga kulligood waan hubaa haddii qaaca aan ku qaban lahayn in meel kordhisada waayahay Mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ka jawaabayay codsiga ardayda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay maanta joogaan waqti ay codkooda ku muujin karaan rabitaankooda aanu amaanayaa wiilkii dhalinta yaraa ee halkan soo istaagay oo ah gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan oo caawa aqbalay hadalkii ra'iisul wasaaruhu sanad iyo 6 bilood uu ku lahaa shacabka Soomaaliyeed codkiina kor u qaada waxaan ku bishaareynayaa waa dhamaatay waqtigii qof Soomaaliyeed xuquuqdiisa la duudsado hadii la soo gaarsiiyo farmaajo ee Xasan Khayre waxaan rajaynayaa in qof walba Soomaaliyeed oo dhageysanaya meel walba uu joogo Suudaan iyo Soomaaliya iyo dalka dunida in la soo gaaray waqtigii Soomaaliya ay runtii sheegi jirtay anigu ma ooyi Cabdulqaadir waxa uu halkan ka sheegay inay dhab yihiin waxaan idin ballan qaadayaa laakiin in la ogaanayo inay dhab yihiin marka la ogaadana in laga qaadayo tallaabada ugu habboon sida ugu dhaqsaha badan xukuumadda Soomaaliya waxa ay hubinta jiritaanka cabashada ardayda Soomaalida ee Suudaan ku qaadatay muddo ka badan 10 cisho waxaana ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya oo fulinaya codsi ka yimid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku amray dhammaan mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Khartoum inay si degdeg ah u yimaadaan magaalada Muqdisho go'aankanina waxa la sheegay inuu jawaab u yahay cabashada ardayda Soomaalida ee Khartoum qof kasta oo safaaradda Soomaalida ee Suudaan ka howlgala ayaa la amray la faray inay dhaqso u soo noqdaan arintaasi waxay daba socotaa amar uu ra'iisul wasaaruhu bixiyay kadib markii uu booqashadiisa ugu dambeeyay ee Suudaan uu u kurgalay shaqada maaragtay maxaa safaaradda ka socota uuna dhageystay warbixino iyo warbixino ay shacabka Soomaaliyeed ardayda Soomaaliyeed Suudaan joogta ay siiyeen si kastaba ahaatee muddooyin ku dambeeyay waxaa socday tillaabooyin ay qaadayso dawladda Soomaaliya kuwaasi oo ay kaga jawaabayso baahiyaha shacabka Cabdullaahi Axmed Nuur Universal TV Muqdisho